caruurey ku soo dhawaada barnaamijkeeni maaweelada caruurta. barnaamijkeena maaweelada caruurta waxaan idiin hayaa sheeko aada u qurux badan. sheekadaas waxay ku saabsan tahay bisad ama mukulaal sida u taqaanaan. mukulaasha sida ay kusoo gashay magaalada. mukulaashaasiiti waxay jecleed in ay la saaxiibto saaxiib aada u xoog badan. saaxiibkaas xooga badan way raadisay. waxay socoto waxay aragtay libaax. allay leeyahay ninkaana xoog badan inaa la saaxiibto waa istiri. libaaxii ayay la saaxiibtay mukulaasha. markay la saaxiibtay way soo raaceen. mukulaashii iyo libaaxii oo isla socda muddo markii ay socdeen waxaa ka hor yimid maroodigii iyo waxaa isdagaalay libaaxii. siday isku dagaalayeen waxaa la dilay libaaxii. mukulaashii way fikirtay waxay istiri adiga waa adigii lahaa inaad la saaxiibto saaxiib xoog badan. okay, libaaxina waa lagaa dilay. yaa kaloo la saaxiibi kartaa? maroodiga ayay sidaas kula saaxiibtay mukulaashii. mukulaashii way soo baxday. maroodigii ayay soo raacday. maroodigii iyadoo isla socdo muddo markii ay socdeen maroodigii waxaa dilay ugaarsade. ugaarsadihii markii uu dilay maroodigii, mukulaashii weli ma aysan hilmaamin hadafkeedii ahaa in ay la saaxiibto saaxiib xoog badan. mukulaashii way fikirtay maroodigii maadaama la dilay waxay istiri waxaa xoog badan ninka ugaarsadaha ah. sidii ayay waxay ku soo raacday mukulaashii ugaarsadihii iyada markay soo raaceen ugaarsadihii wuxuu yimid gurigiisa. markuu gurigiisa soo galay waxaa ka hor timid xaaskiisa ayaa waxay ka qaaday qorigii uu waday asaga. waxayna ku tiri halkaas fadhiiso waryaa raashinan kuu keenaya. mukulaashii way fikirtay waxay istiri ninkan waxaa ka xoog badan xaaskiisa. sidaas darteed waxay la saaxiibtay mukulaashii xaaskii ugaarsadaha markii ay la saaxiibtana waxay galeen labadoodii jikada. meeshaas waxaa kaaga muuqdo mukulaasha qaabka ay ku soo gashay magaalada oo annaga noogu timid in ay ka sheekeynayso sheekadii mukulaasha sida ay ku soo gashay magaaladana halkaas ayay noogu dhammaatay.